عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومدى إسلام كمل كستو جوجتان وسلامتين جارهان بوس باس تيم Somali ودنا udhaxeeya يعني but I love you guys my supporters dadkay support garay aad iyo aad u mahadsantiin because idinka dhiirigelin igu sameynaya markay dhaadaan keep going you can do it blah blah waxa way encouragement that's motivate me it called motivation right marka hasi yeeshee markan ka gudubtaas teeda kale saa ula socotaan horta corona hadda waa laga buuxaya amal way inkastoo weli UK maalin aanana siin laakiin alxamdulillahi rabbil alamin gradually wax kasta waa furmayaan ilaah noo furo marka runtii taas marka meeshaas ugu baxo asxaabteyda ama taageerayaasheyda waxa waaye alxamdulillahi rabbil alamin muddo badan wax waa sugteen hadee kullu ta'khir al-khayr nabiga ku duceyso sama shay kastoo daaho خير والدها بركة الله نسيه من أول أهم شيء وحاولت ما أنا كست وجد there's everywhere problem إنه حاول كوروني حتى وحاول UK وحسوق قال لي كوروني مارتي إنديا مفهوم أنت إما UK مارك ستيل وحاول so لكن هذا الشيء كذا الحمد لله رب العالمين وقدرتن دي بدأ واحد ينكسر الدواء because واحد يشيء إنه jooga degan yahay wax kasta ma sha Allah ay furan tahay adduunyada isu furayso Allah noo furo maxaa yeelay in badan ama qabiyan mid kale waxa waaye dadka Afrika jooga horta waa naga fiican yihiin laakiin waxa waaye they just don't know that why war aniga waxaan hadda ogaan lahaa wallahi billahi wa taala Afrika iska jooga lahaa because war vitamin D ga qoraxda laga helayaa ya waxa waaye fruits firi والليلة وحجرة منطقة when I was back home even though I'm right ولقي ما أركن عنب expire نقناي ولقي ما أركن موس expire نقناي ولقي ما أركن ما حنقول إلا عانة expire نقناي والروت expire نقناي ما أركن لكن وطن كان قربان مارت everything is expired and like they say you are what you eat واحد عنتم بطها لي رموت يا وطن كان في عنق أركي وحلو ده وحجرة سديدي تون أدوه كاوين يا مركز أرتب hard to believe مركز الحمد لله رب العالمين هرتا إلها ما هذا قف بميش جو من أول الله كو عمان صدا هدي من داس أوبه هالقاس ولا ليلو as we are Somali community معناها صاونا هنا كسومالي community أقرب جوجتو you know like أقربها جوجنو كل كلمة جوجنو موت مركز دلنا دلك هذا إهن درين كداق واي you feel me مركز mostly أنا waxaan jeclahay I mean filmadii ahaadaan awareness wax laga faa'iideysto street life kuma taqaana street wise I mean waxa way family la familia inaan ka hadlan jeclahay the reality is waxa way the gang related dhibaatada gangiga wax haysto ma faham marka hadda magaaladan joogo darad wiil min the legal, you know what I'm saying? Ambulance into imanin, he was a teenage man. Adunga tawili marke miskinka. Isbita ambulance into imanin wiilka wuu dhintay. Marka wallahi to be honest waxaan jeclahay waxyaabo waxay gelin inaan sameeyo. Okay? Oh, to do with familiada mataqana nolosha socoto min الدنيا runtii waxaa waaye reer axmed waxay dhahan in lis aamin waa fiican tahay laakiin in nisba aaminna ka fiican ay dhahan but the fact is noloshan waan ku noolnahay whether we gonna like it or not haddaan jeclaanin haddii kale waa ku dhex noolnahay waddanka marka marxaladda waddankan inaan la qabsano because dadka waxaa dhahan mataqaanaa nolosha maraykanka is a dangerous soomaalida qaar saas dhahan laakiin the more of fact is UK is the worst man yeah Somalidi waxay barteen gang, you know, I mean, well, that's a private makahadlayo ko daha. I mean, my life, forget it, man. I don't want to talk about my life. So, see, believe it, what I do. مفهمت? And as كل يوم مش عيد marka
wallahi to be honest waxaan jeclahay inaan noqono big community, dad isjecel aan samaysano Soomaalida. Aniga mataqaanaa dhinaca awareness kan doonay inaan si fiican uga shaqeeyo. maxaa yeelay as a father, me and myself, I'm a daddy. When I came to this country, I was a little boy, right? But now I'm a grown man. I got my own kids to show, right? Markaasi yeeshee, I have to be a good role model though, right? Marka ilmahayga waxa waaye wax fiican inaan tuso. Marka ilmo kastoo Soomaali, they are related to me. Ma fahamtay? Ilmo kastoo Soomaali ku nool Europe waa ilmahayga. As a father, right? Marka ilmahayga saan ugu naxaa kuwa kalena ugu naxaa, to be honest, whether you believe or not. maxaa yeelay I've been there, I've done that, having no more. Ma fahamtay? It's about the time to grow, be a wise man. You feel me? Marka ilaahay wixii badbaadiyaa badbaadsama, Allahna wada badbaadi, awlaadana Allah noo badbaadi. But at the same time ilaahay wuxuu ku yiri dadaalaha uu gaaraa Soomaa. Deeqsi waa mid daa'inkayga bixiyo, dadaalna waa lama huraan. Ya marka waxyaabahan doonayo awareness, that inaan doonayaan ka hadlo aniga, nothing else. Marka I need your support. Ben ma sheegayo, I'm here ina idinki support garaysan. maxaa yeelay aniga I'm as an entertainer, yeah, you're my audience, right? Marka audience waxaan doonaya inaan oo entertain sameeyo. hase yeeshee horta hadda middle waxaan ku jirnaa, hadda corona laga baxoya, alxamdulillahi rabbil caalamiin. Middle of waxa way getting together the crew, you know what they call crew, kooxda you know, filimada sameyn doono insha allahu tacaala. ilaahayna garab hanaga siiyo. maxaa yeelay walaalayaal anaka walaalihiinaan nahay, okay? Marka end of the day, what they call, there's a maxafad iyo mucaarad. you see, Soomaali waan baranoya hadda, wallahi war hadda af Soomaali idinku barto si fiican wareerkii adduunka dhacano. Lakin look, till the end of the time I'm here for you. You feel me? Marka this is gonna be episodes, yeah, episode part 1, part 2, part 3, you know, like that how it goes. Marka this is the reality. Adduunyadan waqtigeena, my generation, ma fahamtay, we were cool guys, man, you know, like there was a love, waa isjecleen. Laakiin hadda dadka joogo sheekadii number 1 magaca qabiil, hasbunallah wa ni'mal wakiil. Inta ka imaatay qabiil, come on. Marka anaka dhan doonta wada saarana horta, you know, sheekhayga Allah yarxama, ilaahu u naxariis rabbiyo, you know, like Mareykanka dilando Barack Obama. Marka Allah u naxariisto, to be honest. Marka wuxuu dhahay qof kasta 3 ticket oo wataa u dhacay, 3 ticket, 3. you feel me? Marka ticketka wuxuu koowaad wuxuu dhahay caloosha hooyada ka soo bixi dibadda imaanaysa, sax? kan labaad adduunka ka tagay aakhira tagaysa, sax? kan saddexaad janna iyo naar meeshii ilaahay ya kugu talagala tagay. marka ku guuleystay Allah naga dhigo. hadda sheekada waxaan taagan tahay fadhakar fatanfa'ul mu'miniina. de wax baan isku sheegi karnaa mugta qof aan ku leenahay mala, laakiin as entertainer wax inaan isku sheegno way reality-ga. noloshan waan ku wada noolnahay, we are, whether we gonna like it or not, doonta waa wada saaranahay. we have to accept the reality, my people. I am what I am, you are what you are. adiga waxaad tahay waa tahay, aniga waxaan ahay waan ahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii iga dhigay, adna ilaahay wuxuu kaa dhigaa tahay. let's face the music, runta aan isku sheegno. awlaadayna meesha ku baabucaysa. so how can we save next generation? saan u badbaadin karnaa? ma qabiilan ku badbaadinaynaa? hell no.
We have to educate. You see? Knowledge. Without knowledge, waxaan samayn karna ma laha. Dulqaad waa loo baahan yahay. Keena xun inaan u dulqaadano. Keena fiicanna shaqada inuu sii wado. Marka aniga kuwa xunaan ku jiraa. Kolley aniga dadka xunaan ku jiraa. Marka dadka naga fiican na hogaamiya. I don't mind. Okay? Waxaa la lahay hogaamiin noqo ama in lagu hogaamiyo ogolow. You got that right. Marka only thing I'm good at, I do what I do best. People like you gotta watch the brother. Let the ball rolling, right? When you see the ball rolling, you gotta follow the brother. Marka dadweynaha ay support gareeyo masha Allah meel kastoo joogtaan. من أول إله سبحانه وتعالى أيام هضلي الحمد الشكر الملك لله رب العالمين. تهذا اللبات إذن كانوا إذن كما هاد إلينا يا تاجر لماذا يتاجريسن أو hope كيسين رجاء داد ورامين. مركا الحمد لله رب العالمين. مركا till we meet again وحواي keep supporting brother. أنت كل مين support كولا. I mean تاجر taageera waa idin dhahoya I'm not gonna lie. Taageera idinka baahanayno. Adiga even you. Marka insha Allah ta'ala waxa waaye saas inoo dhantahay. Peace and love as brother Malcolm say. Assalamu alaikum.